أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا الله سبحانه وتعالى ما دام صفاتك أي تلمامها وليهي وإن أبوري وإن ليهي وإن معموله ونعمي وناك استوي نسيي وحق إنه يقول لي يا رب سبحانه وتعالى إنه ينقنا الدوام الدبا وإنه حقيقينه ujeedada ilaahay inoo abuuray saaxiib wanaagsan dooro waa dantaada saaxiibka xunna iska ilaali oo ka fogow qofka muuminka ahi hadduu taagan yahay hadduu fadhiyo hadduu jiifo hadduu soconayo hadduu arrin adduunye ku jiro hadduu masaajidka fadhiyo hadduu goobtiisa ganacsi dhex fadhiyo waa mid aan marnaba ilaahay subxaana wa tacaala aan ilaabin qofka masaajid ilaahay daraaddii u dhisa ikhlaasan magac ku dooni maayo maamuusna kuma rabo manfaca adduunyana hadalkeeda baddaa ilaahay buu wax kaga doonayaa ilaahay wuxuu ku abaalmariyay inuu guri jannada uga dhiso ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biالsabr afartaasi arrimood waktigu waa qaali oo anigaa ku dhaartaye ha ku dhammaada weeyaan macnaheedu iimaan camal saalixa sabir aad ku sabirto wanaagga xumaanta aad ka sabirto qadarada ilaahay u xanuujiyana aad u sabirto iyo wanaagga ilaahay subxaana wa tacaala adiga uu kugu galladaystay inaad dadka kalena u gudbiso bakhayl aanad ku noqon abu hurayra radia allahu canhu wuxuu soo maray dadkii oo suuqa jooga oo ku mashquulsan howlihii adduunyo beec iyo shiraa inay wax iibiyaan iyo wax kala iibsadaan wuxuu ku yihi ayuha annaas antum haa huna wa miiraahu nabiyikum yuqsamu fi lmasjid dadoo halkanaad fadhidaan dhaxalkii nebigiinana waxaa lagu qaybinayaa masaajidka dad baa masaajidka yimi iyagoo u malaynayey xoolo uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka tegay masaajidka in lagu qaybsanayo waxay arkeen masaajidkii oo qur-aan lagu akhrinayo qur-aan lagu baranayo masaajidkii oo xalaqaad cilmi ay ka ogan yihiin oo ay ka socdaan waxay ku soo noqdeen abu hurayra radia allahu canhu waxay dhaha yaa abaa hurayra inamaa taquul abu hurayra waxaad sheegaysay mee masaajidkii kumaanaan arag wax xoolaa lagu qaybinayo wakula insaanin alzamnaa طaa'irahu fii cunuqihi ilaahay baa wuxuu yidhi qof walba waxaanu qoorta u sudhnay camalkiisa waxaanan u soo saari doonaa maalinta qiyaamana soo hordhigi doonaa isagoo ah qoraal uu akhriyo iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba waxaa la odhan doonaa akhri qoraalladii lagaa sameeyey naftaadaa maanta kuugu filan عدك حسابي أديكو قرنقص أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي با سبحانه وتعالى الدنيا إسكاله قل اللهم مالك الملك إلهي با سبحانه وتعالى سموينك إيا دولالك إنت ودح حيسا إيا إنت كدح خلقنبا إلهي با ملكية قوب كستا ودولك كميدي وخلقي كميدة خلقي إلهي سبحانه وتعالى iyadoo xaqiiqadu ay saasi tahay ilaahay subxaana wa tacaala waa kala fadilay makhluuqaadkiisa hadday tahay kuwa nool iyo hadday tahay kuwa noolayaashaaba dhulka ilaahay baa subxaana wa tacaala dhammaantiibaa abuuray mulkiyana
haddana ilaahay subxaana watacaala dhulka waa kala jecel yahay waanu kala fadilay. wuxuu uhi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam arrintaa cilmigeeda wax ka mida isagoo inoo tilmaamaya axabu lbiqaaci ila allahi masaajiduha wa abgadu lbiqaaci ila allahi aswaaquha rawaahu muslim. dhulka ilaahay subxaana watacaala wuxuu u jecel yahay masaajidada. dhulka ilaahay waa abuuray, waxaanu ilaahay subxaana watacaala u necab yahay suuqyada. muxuu ilaahay subxaana watacaala masaajidka ku jeclaaday? suuqase ilaahay muxuu ku nacay? labaduba waa dhulkii ilaahay, labadaba dhismayaal ayaa ka taagan, khalqi iyo bani aadamna waa joogaan. waxa ilaahay masaajidada ku jeclaaday waxaa lagu hayo. suuqana ilaahay wuxuu ku nacay waxaa inta badan ka dhaca. masaajidada maxaa lagu hayaa? masaajidada waxaa lagu hayaa ilaahay towxiidkiisa maalintii iyo habeenkii 5 jeer lagaga dhawaaqa oo eedaankii ayaa ka baxaya. salaada oo ah camalka u fadliga badan ee qofka bani aadamkaahi uu sameeyo ayaa faral iyo sunnaba dadka muslimiinta ay la yimaadaan, oo shaciirada calaamada weyn ee calaamadaha islaamka ka mida ayaa masaajidada ka oogan. masaajidada ilaahay baa lagu xusaa, qur-aankaa lagu akhriyaa, rabbi baa lagu baryaa, nuur iyo iftiin iimaan iyo camal saalixa ayaa mar walba ka baxaya. suuqyada khiyaana ka dhacda, gish ayaa ka dhaca, been baa ka dhacda, dhaaraan sax ahayn baa ka dhacda, waxa aan sax ahayn in lagu iibiyo markay ugu yar tahay khaflad baa ka jirta. in ilaahay subxaana watacaala la ilaabo oo dadka qaarkood faralku uu ku dhaafo, qaar fara badanna gebgab uu ku noqdo, qaar kale oo tiro badanna arrinkooda uu ku soo ururo inay 5 salaadood un tukadaan, wax fara badan oo ay ahayd inay sameeyaan inta ay nool yihiinna inay ilaabaan oo adduunyadu ay ka mashquuliso. masaajidada iyadoo ilaahay dhulka oo dhan uu leeyahay, adduunka oo dhanna uu mulkiyey, si gaara buu qur-aanka ugu sheegay inuu ilaahay leeyahay. ilaahay baa subxaana watacaala isu tiiriyey, waa idaafatu tashriif. ilaahay wuu sharfayaa, qiimaheeda ayuu muujinayaa. wa ana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada. masaajidada ilaahay baa iska leh, cid kaloo sheegan kartaa ma jirto. ilaahay subxaana watacaala ku caabuda, kuna keliyeeya, oo ilaahay cid aanayna ku caabudina, ha kuna baryina. saasuu leeyahay rabbi subxaanahu watacaala. masaajidadu waa goobta daahirka ah ee qiimaha badan. islaamku masaajidada qiimahooda aad buu u muujiyey, axkaam iyo aadaab iyo xuquuq gaarana wuu u yeelay. marka koowaad wuxuu dhiirigeliyey dhisitaanka masaajidada, oo qofka masaajid dhisaa waa qof guri ilaahay dhisay, oo inta uu dhisan yahay ee lagu caabudayo ajarkiisu uu u socdo. ilaahay subxaana watacaala maalinta la hortagana abaalkiisa uu arki doono. wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo dhiirigelinaya dhismaha masaajidada, siduu wariyey Cuthmaan ibnu Cafaan markuu masaajidka nebiga Cuthmaan dib u dhisay, ayaa dadka qaarkood arrintaa hadal ay ka keeneen oo waxay yidhaahdeen waxa fiicnaan lahayd masaajidka in loo daayo siduu ahaa waqtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam. markaasaa Cuthmaan wuxuu yidhi arrintaa hadalkeeda ayaad badiseene, waxa igu kalifay waxaan maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo leh man banaa lilaahi masjida yabtagii bihi wajha bana allahu lahu beytan fi ljanna, fii riwaayati bana allahu lahu midlahu fi ljanna. waxaan maqlay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh qofka masaajid ilaahay daraaddi u dhisa ikhlaasan, magac ku dooni maayo, maamuusna kuma rabo, manfaco adduunyana hadalkeeda badaa, ilaahay buu wax kaga doonayaa. ilaahay wuxuu ku abaalmariyay inuu guri jannada uga dhiso. gurigaasi xagga magac ahaan ayuu ka shabahaa kan adduunyada ama masaajidka, laakiin xaqiiqadiisu waa ay ka duwan tahay. waxa yaalla waxaanay indheheenu qaban, dhegaheenuna xaqiiqadiisa iyo dhabtiisa aanay maqal. sidaasoo kale qofna aanu sawiran xaqiiqada uu leeyahay. waxyaabaa jannada yaallaa magacay la wadaagaan waxaan adduunyada yaallaa, laakiin xaqiiqadooda way ka duwan tahay. qofka muslimka inkastoo looga waramo, warka iyo marka uu arko aad bay u kala duwanaan doonaan, sida ilaahay noo sheegay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu caddeeyey. islaamku wuxuu saasoo kale ka waramay masaajidka goobta laga dhisaayo, maaha in meel walba masaajid laga taago. wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam, sa caaisha ay ka warisay, amara الnabiyu bibinaaءi اlmasaajidi fi اduur
wuxuu rasuulku amar ku bixiyey masaajidada in laga dhiso meelaha ay degan yihiin dadku waa axyaau lqabaa'il dadku waxay u deganaayeen magaalada madiina ee magaaladii nebiga calayhi salaatu wasalaam qeyb bay u deganaayeen xaafado ayay magaaladu ay ka koobnayd marka meelaha dadku ay ku badan yihiin ee ay degan yihiin laga dhisaabuu rasuulku amray waayo maxaa loo dhisayaa in ilaahay lagu caabudo in lagu tukado in cilmi lagu barto in khayrka laga faafiyo haddaanay meesha cidiba joogin meel cidlaa masaajid in laga dhisaa maqsuudkii iyo ujeedadii laga lahaa dhismaha masaajidada mid xaqiijinaysa maaha nabiyuna maxamed caleyh afdal salaatu watasliim wuxuu ka digay sidaas oo kale bal qur-aanku uu tilmaamay inay khalad tahay in iyadoo meesha uu ka dhisan yahay masaajid dadka ku filan in mid kale laga dulgeeyo waayo jamaacadii hore masaajidkaasi uu ku filaa ayuunbaa kaa kale uu kala kaxaynaya oo inay kala biiqbiiqaan oo ay yaraadaan sababuu ugu noqonaya waxaana la rabaa muslimiintu inay noqdaan jamaaca waaxida intay suurtagal u tahay inay meel qura isugu yimaadaan si ay quluubtoodu isugu soo dhowaato ay isuna xaal ogaadaan ilaahay baa subxaana wa tacaala tilmaamay munaafiqiintu inay dhiseen masaajid ujeedooyinka ay ka lahaayeen waxaa ka mid a inay doonayeen inay muslimiinta kala geeyaan masaajid kasta oo muslimiintii kala geyntooda sabab u noqonaya masaajidkaasi masjidu diraar ee munaafiqiintu ay dhiseen inuu la mid noqonayo ayay culamaa ulislaam sheegeen masaajidkii marka la dhiso islaamku wuxuu dhiirigeliyey masaajidku inuu noqdo goob qalbigu uu ku xasilayo isla markaana nafta soo jiidanaysa oo dadku guryahooda way nadiifiyaan masaajidka ayaa taasi uga mudan rasuulku calayhi salaatu wasalaam saa caaisha ay ka warisay wuxuu amray an tutayaba wa tunadaf xadiidka hore aynu sheegnay buu hadalkaasi la socdaa in la dhiso masaajidadoo laga dhiso goobaha ay dadku degan yihiin isla markaana in la nadiifiyo masaajidada lana udgooneeyo oo meel nafta soo jiidanayso qalbigu ku xasilayo qofku isagoo degan oo wuxuu karaahiyeysanayo oo mashquulinaya aanu meeshaasi ka socon ilaahay subxaana wa tacaala inuu caabudo waa goob loogu talagalay weeyaan wuxuu islaamku la dagaalamay wax kasta oo masaajidka dadka muslimiinta isugu yimi dhibaateyn kara mashquulin kara dhibaatiyo keeda ay kala kulmi karaan oo ay ka mid tahay arawaaixu lkariiha urta naftu ay dhibsanayso oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi isagoo ka hadlaaya labada geed ee toonta iyo basasha aynu naqaano qofka cunaa laa yaxdur masaajidana sa muslim uu wariyey yaanu imanin masaajidadayada malaa'ig baa imanaysa walmalaa'ikatu tata'adaa mima yata'adaa minhu banu aadam malaa'igtu waxay dhibsanayaan wuxuu bani aadamku dhibsanayo bani aadamkuna urta qarmuun uu dhibsanaya malaa'igtuna saasoo kale way dhibsanaysaa waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadku may ahayn kuwa sigaar cabaa ama waxyaabo kaloo qarmuun isticmaala udug iyo diibkana waa ku dadaali jireen haddii ay dhacdo qof toon cunay ama basal cunay oo weli ay kasoo ureysaa masaajidka inuu soo galo xoog baa masaajidka lagaga saari jiray si aanu u dhibaatayn malaa'igta iyo dadka muslimiinta ah masaajidka isugu yimi ee ku cibaadeysanaya waxaa saasoo kale rasuulkeenu caleyh afdal salaatu watasliim uu diiday qofku masaajidka inuu candhuuf ku tufo albusaaqu fi lmasjidi khatii'a masaajidka candhuuf lagu tufaa waa gef wa kafaaratuhaa dafnuhaa masaajidku markuu ciidda ahaa rasuulku wuxuu yidhi gefkaa qofka waxaa lagaga dhaafayaa candhuuftaasi inuu aaso masaajidka nadaafadiisa iyo udugiisa si uu goob degan u noqdo saasuu islaamku u ilaaliyey waxaa laga ilaaliyey buuqa iyo dhawaaqyada aan ahayn khudbad ama wacdi ama salaaddii imaamku dadka uu ku tukinayey ee intaasi ka baxsan oo rasuulku wuxuu uhi iyaakum waheshaati laswaaq suuqa buuq iyo sawaxan badan baa ka socda arrintaasoo kale masaajidada ha la imanina qofku masaajidka isagoo ku dhex jira isagoon khudbadaynahayn ama aan khayr iyo cilmi sheegahayn inuu dhawaaqiisa kor u qaado saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim waxay arki jireen dembi iyo gef qofku uu ku mutaysanayo in lagu ciqaabo cumar ibnu khadaab radia allahu canhu wuxuu arkay laba nin oo kor u dhaqdhawaaqaya masaajidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhexdiisa markuu amiirka muuminiinta ahaa labadii nin buu nin u diro wuxuu ihi igu yeedh uu wareysto wuxuu ihi xaggaad ka timaadeen waxay yidhaahdeen waxaanu ka nimi shaam wuxuu ihi haddaad reer madiine ahaan lahaydeen
madiine culimadii baa joogta, cilmigii baa yaala, masaladaasoo kale reer madiine kama qarsoomi karto. laa awjactukumaa darba, waan idin garaaci lahaa buui, waan idin tacziiri lahaa, khasiraad garaaci baan idinku khasiri lahaa. tarfacuuna aswaatakumaa fii masjidi الnabiyi salى اllahu alيه wasalam, dhawaaqiina aad kor u qaadaysaan masaajidkii nabiga calayh الsalaatu wasalaam idinkoo jooga. masaajidka maxaa loo dhisay? nebi maxamed baa calayh الsalaatu wasalaam caddeeyey waxaa loo dhisay. inamaa buniyat hadihi اlmasaajid liلsalaaة walidikri اllah waliqira'ati اlqur'an. waxaa loo dhisay in lagu tukado faral iyo sunne. waxaa loo dhisay masaajidada in qur-aanka lagu barto oo lagu akriyo. waa ka yihi rasuulku midkiin inuu masaajidka ku kallaho oo aayad qur'aana uu ka soo barto ayaa uga khayr badan hal kurus weyn, laba aayadoodna laba halaad, tiro kasta oo aayadii tirada u dhiganta oo geela oo markaa xoolihii u qiimaha badnaaya ay uga khayr badan tahay. wuxuu ahaa masaajidku waktigii nebiga calayh الsalaatu wasalaam goobta tacliimta, oo rasuulku meel kale dadka waxba uguma dhigi jirin. inta badan mararka qaarkoodoo saxaabiyaadka uu ugu tegey guri uu kula ballamay, iyo garoommada ciidda oo kale, iyo goobaha muslimiintu ay isugu yimaadaan waa dhici jirtay. laakiin goobta rasmiga u ah inuu ummadda waxbaraa masaajidka ayay ahayd. isagoo ka khudbadeyn jiray, isagoo rasuulku calayh الsalatu wasalaam ka muxaadareyn jiray, isaga ayuu dadka u ka wacdiyi jiray. qur-aanka masaajidka ayaa loo soo doonan jiray. waa ka sheegay abu cabdiraxmaan الsulami, tiir ka mida tiirarka masaajidka nebiga madiine ku yaala 40 sannadood inuu ku tiirsanaa. salaad subax marka laga baxo uu ku tiirsan jiray. wahuwa yucallimu naasa alqur'aan, isagoo dadka qur-aanka baraya. qur-aanka lagu barta masaajidka iyo qur-aanka meel kale lagu bartaana isku mid maaha. qur-aankan waa qur-aan lagu bartay goob iimaan u camiray iyo nuur, goob ruuxaaniya oo qofka qalbigiisa uu ku xasilayo ilaahay subxaana watacaala uu xusuusan yahay, khaladka iyo gefka uu iska ilaalinayo. masaajidda waxaa loo dhisay in ilaahay lagu xuso. xuska ilaahayna waxaa ka mid a oo kiisa u waaweynba ka mid a in lagu barto culumta shareecada sida qur-aanka, tafsiirkiisa, xadiidkii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam, xaaraan iyo xalaal in lagu kala aqoonsado. waxaan ahayn in lala yimaado islaamku aad iyo aad buu u diiday in masaajidka laga dhigo goob ganacsi oo wax lagu iibiyo. man ra'aytumuuhu yabiicu fi lmasjid aw yabtaaca faquluu lahu laa arbaxa allahu tijaarataka, rawaahu muslim. qofkaad aragtaan isagoo masaajidka wax ku iibinaya, goob ganacsi u rogay amase ku iibsanaya, waxaad ku tidhaahdaan ilaahay kaama caashiyo ganacsigaagaas. masaajidku goob ganacsi uu yahay, waana suuq, laakiin waa suuq ulaakhira. imaha goob bani aadam wax lagaga iibinayo amabase wax lagaga iibsanayo. qofka xoolihii ka lumay masaajidka inuu ka yaboohiyo ayaa rasuulku calayh الsalaatu wasalaam uu diiday. qofkaad aragtaan isagoo oo yaboohinaya wax ka lumay masaajidka dhexdiisa, waxaad ku tidhahdaan buu rasuulku calayh الsalaatu wasalaam ilaahay kuuma soo celiyo. fa ina almasaajida lam tubna lihada, waayo masaajidada arrintaasi looma dhisin arrimahaasi adduunyo. dadka qaar baa laga yaabaa xayeysiisyadooda ganacsi masaajidada gudahooda inay soo geliyaan. taasina waxay la xukum tahay bay yidhaahdeen culimadu inuu qofku masaajidka dhexdiisii wax ku iibiyo, waa in masaajidka dibadda looga saaro. kaalintu ugu jiray waktigii nebiga calayh الsalaatu wasalaam. nebigu markuu soo galay magaalada madiina, hawshii u horreysay uu qabtay waxay ahayd inuu masaajid bineeyey. masaajidkaasi wuxuu noqday makaanu ijtimaaci lmuslimiin, muslimiintu halka ay ku kulmaan, halkay muslimiintu ku tashadaan, halkay isku xaal ogaadaan, goobta ay wax ku bartaan, halka muslimiinta laga tawjiihiyo ee fariimaha saxda looga sheegayo, goobta jahliga lagaga suuliyo, goobta wixii khaldama laga soxo, goobta ummadda lagu hogaamiyo. hogaamin, dooyin, aqoon masaajidka ka soo baxaysan waxaynu garanaynaa barakada iyo wanaagga ummadda ay u leedahay. marka ummadda taladeedii, hogaaminteedii, wuxusheegeedii, aqoonteedii masaajidka laga fogeeyo oo meelo kale mid ka soo baxaysa ay noqoto, waxay noqonaysaa mid ka fog cilmigii nebi maxamed alayh الsalaatu wasalaam lagu soo dejiyey iyo khayrkii iyo wanaaggii waxyiga xagga ilaahay ka yimi la socday. taana baraka la-aan baa ka dhalanaysa. qofka masaajidka imaamka ka ah mas-uuliyad weyn baa saaran. ma aha intuu salaada tukiye oon in halkaa uu ku joojiye hawshiisa. wuxuu mas-uul ka yahay dadka tukintooda, wuxuu mas-uul ka yahay inuu khaladkooda saxo, inuu jahliga ka suuliyo wuxuu sheego, inuu quluubtooda toosiyo. wuxuu mas-uul ka yahay inuu tafaqudo xaalkooda uu ka warhayo, yaa xanuunsanaya, yaa gaajoonaya. muadinka iyo dada kale masaajidka ku xeeranna sidaas oo kale. aniga iyo adigaba
masaajidka xidhiidh nooceeya ayaynu la leenahay. waxaynu ka mid nahay dadka loo dhisay, waxaynu ka mid nahay dadka loogu yeedhayo, waxaynu ka mid nahay dadka ay waajiba ku tahay inay masaajidka tagaan maalin walba iyo habeen walba si ay cilmi uga bartaan, ilaahayna subxaana wa tacaala ay ugu caabudaan. bal arrintaa dib aynu eegno. ilaahay baynu weydiisanaynaa masaajidadeenna inuu ka dhigo kuwa gutaa ujeeddadii loo dhisay, innagana inuu inaga dhigo kuwa lale masaajidada xidhiidh saxa. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق